quwadda ciidanku waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee qarannimada. dal kasta oo madax bannaana wuxuu u baahan yahay awood ilaalisa xuduudihiisa, difaacda dhulkiisa, kana hortagta khataraha dibadda. taariikh ahaanna ciidamadu waxay sidoo kale door weyn ku lahaayeen dhismaha dowladnimada iyo ilaalinta jiritaanka qarannimada dal kasta. laakiin su'aashu waxay tahay, maxaa dhacaya haddii dal uu ciidankiisa gebi ahaanba baabi'iyo? dal aan ciidan lahayn ma wuxuu noqon karaa dal ammaan ah? sideese ayuu u ilaalin karaa madax bannaanidiisa haddii uusan lahayn ciidan difaaca xuduudihiisa? su'aalahan waxay ina geynayaan Costa Rica, dal ku yaala bartamaha Ameerika, kaasoo 1948 baabi'iyay ciidamadiisii qalabka siday. haddana in ka badan 70 sano kadib, Costa Rica weli waa dal jira, madax bannaan oo aan lahayn ciidan joogto ah. haddaba maxaa dhab ahaantii Costa Rica ku kalifay inay ciidankeeda baabi'iso? sideese ayay ugu suuro gashay inay ilaaliso amnigeeda iyo qarannimadeeda iyadoo aan lahayn wax ciidan ah? Costa Rica waa dal dhaca bartamaha Ameerika, waxaana dhanka waqooyi xuduud kala wadaagaa dalka Nicaragua, halka dhanka koonfureedna uu xuduud la wadaago dalka Panama. dalkan waxaa labada dhinac ka xiga badaha waaweyn ee Caribbean-ka iyo badweynta Pacific-ka. caasimadda dalkan waa magaalada San Jose, waa magaalo dhacda dhulka bacrinka ee loo yaqaano Valle Central, waxaana magaaladan la aasaasay sanadkii 1736, halka ay caasimadda dalka noqotay sanadkii 1823. San Jose waa xarunta siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha Costa Rica, waxayna si weyn u kobcday intii lagu jiray qarnigii 20aad. sidoo kale waa xarun muhiim u ah gaadiidka dalka, iyadoo wadooyinka waaweyn ee ka baxa ay isku xiraan xeebaha badweynta Atlantic-ka iyo badweynta Pacific-ka. magaaladu waxay sidoo kale hoy u tahay jaamacadda Costa Rica iyo xarumo kale oo badan oo waxbarasho, taasoo soo jiidata ardayda ka yimaada dalalka shisheeye. dhanka dhaqanka, San Jose waxaa ku yaala goobo taariikhi ah oo muhiim ah sida masraxa qaranka iyo madxafka qaranka, kaasoo lagu kaydiyo farshaxanno iyo waxyaabo taariikhi ah oo ay sameeyeen bulshooyinkii dalkan deganaa ka hor imaatinkii reer Yurub. dadka ku nool Costa Rica waa qiyaastii 5 milyan oo qof, halka baaxadda guud ahaan dhulkeedu ay tahay ku dhawaad 51,000 kiiloomitir laba jibaaran. haddaba maxay tahay sababta dalkan uusan u lahayn gebi ahaan ciidan difaaca, iyo waxa uu suuro geliyay inuu noqdo dal amni ahaan iyo qaran ahaanba jira? Costa Rica waxay baabi'isay ciidamadeedii 1948 kadib dagaal sokeeye oo dalka ka dhacay. ujeedadu waxay ahayd in ciidanka loo arkayay inuu ku milmi karo siyaasadda, isla markaana keeni karo khatar amni, taas oo sababi karta in awoodda dalka si fudud lagula wareego ama ay ka dhashaan xukumo kala tirisnimo. xilligaas wixii ka dambeeyay, dalkan wuxuu baabi'iyay ciidankii joogtada ahaa, waxaana uu meesha ka saaray awooddii ugu weyneed ee gudaha dalka, taa oo khatar ku noqon kartay hoggaanka rayidka ah iyo nidaamka dimuqraadiga ah. waxaana dowladdu go'aansatay in qarashaadkii ciidanka ku bixi jiray loo weeciyo adeegyada bulshada, gaar ahaan caafimaadka, waxbarashada iyo barnaamijyada rayidka. tanina waxay qayb ka noqotay qorshihii lagu dhisayay dowlad si weyn ugu adeegta rayidka. go'aanka baabi'inta ciidanku ma ahayn oo keliya mid la isaga dhawaaqay, ee sidoo kale waxaa lagu daray dastuurka dalkan. qodobka 12aad ee dastuurka Costa Rica ee soo baxay 1949 waxa uu meesha ka saaray ciidanka joogtada ah, isla markaana wuxuu ogolaaday in ciidamo la sameeyo oo keliya marka ay jiraan xaalado gaar ah oo sharcigu qeexayo. haddaba su'aasha markiiba qalbigaaga ku soo dhacaysa waxay tahay, sidee ayuu dalku ku sii jiray? Costa Rica waxay ku guuleysatay inay ciidanka la'aantii sii jirto iyadoo amnigeeda ku dhistay heshiisyo caalami ah, booliis gudaha ah, horumar dhaqaale iyo diblomaasiyad. difaaca dibadda waxay ku tiirsaneyd iskaashi iyo heshiisyo caalami ah, halka amniga gudaha ay u xil saartay booliis iyo ciidamada amniga rayidka ah. sidoo kale qayb ka mid ah dhaqaalihii ciidanka lagu bixin jiray waxaa loo weeciyay waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada bulshada, taasoo gacan ka geysatay horumarka iyo xasiloonida dalka. intaa waxaa dheer, Costa Rica waxay dooratay diblomaasiyad iyo nabad, taasoo u sahashay inay yeelato xiriir wanaagsan oo caalami ah, isla markaana ay ilaaliso madax bannaanideeda iyadoo aan lahayn ciidan joogto ah. sababahaas oo la isku daray awgeed, maanta Costa Rica waa dal jira ciidan la'aan laga soo bilaabo 1949 ilaa maanta. haddaba daawada, ma aaminsan tahay in dal uu sii jiri karo isagoo aan lahayn quwad difaac oo gudaha ah? horeyse ma u maqashay in Costa Rica aysan lahayn ciidan difaac oo joogto ah? wixii faallo ah nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. hana ilaawin inaad nagu soo biirto oo ka mid noqoto saaxiibada halkan ku xiran.